السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي هورا waxaa dhacday in bari aan yaraa oo ilaa aan ahaa 6 jir meelaha aan dhigan jiray iskuul keejiya. Waxaa dhacday maalmaha kamid ah in anigoo galaas ku jira waxaan qorayay cashar kadib casharkii anigoo qorayay waxa dhacday in casharkii aan qalinka ku qorayay oo buugii iyo qalinkii ay si xun isaga ka dhacaan oo aan buugii wax ku qorayay inaan fartii ka xumeeyo ama aan ku khaldo. kadib intaasaan isku mashquuliyay intii xiisada ka harsaneed ama intii xiisada kale aanay soo gelin intii baan isku mashquuliyay waxaan ka fakarayay maanta oo dhan maxaad khaldan samaysay maxaad khaldan samaysay sideed u baabiisa. kadib markaan soo jeestay waxaan arkay macallinkii oo xiisadii qoray sharaxay casharkiina dhameeyo ardaydu wada fahantay. kadib maalinta ayaan ogaaday qiimaha ay leedahay in wixii khalad ee hore ka soo dhacay aanay wax muhiimada lahayn, laakiin khaladka maanta bari aad samaynaysaa ama aad ku fakarto weliga ama wixii opportunity aad heli doonto aad ku fakarto weliga. khaladkaas wuxuu ahaa khaladkii iga qabtay khaladaad fara badan oo aan maanta iyo maalin ka mid ah iyo barid hore aan gali lahaa. waxaan ku go'aabinayaa dhammaantiin inaad ka fakartaan khaladka hadda dhacay ama khaladka aad soo dhaaftay inaanad weliga noloshaada aanad ka fakarin, laakiin aad ka fakarto waxa soo socda.